afakaanada waatana hal bil ma dhamo aday dhowr iyo 20 jir waay waatana intaan ay maraysaa saani u qurux badan tahay waa dhalaalaysaa korkeeda ka subka waay saaf waa saliim waay xididkii ilaa hoosoo ka soo baxay waa kana xididdiisa ma u jeedin xidid hadaa haysato okay waay wax walba xidida u sabab caradana qasab maaha in cardhoobay ka dhigto waa ina butmos iyo kombos isku dartaa si xididkuna uu ciyow kugu socdo waa kaas xididka saas uu kugu ordaa carada la ka dhoobeyda way adkeynay xididka geed qurux badan muddo asalka laga dhisaa lahay asalka hadii uu ka dhisan yahay oo xididka oo nafis oo haysto oo mabsuud yahay qofka bini aadanka geedkii bini aadanka isku hal waa macaamiisheeda khaaska dhowr jeer idin dhahay bini aadan geedu iska dhow yihiin maxay isaga dhow yihiin hadalka bis uu kala duwan geedka inuu hadlo bis wiil asaanaga si aqli badan hadii lagu shubo oo biyo oo hadii lagu shubo woo dhinta sheeka Soomaaliya ma dhimanayo geedkan biyaha caadiga ka caba oo iska daadina heerkaas aqligaas oo leeyahay oo Ilaahay awooddaas u siiyay cunug yariiska waa aragtay markii oo la dhalo hadii daaqad lagu furo iftiinka inuu indhaha birq oo ka siinayo u dul qaadan karo afkaanada hadda way yartahay saani u ifee hadii qoraxaas la geeyo maalmo kadib way dhimanayaan laakiin meel har inaan ku haysid waa geedaha badankooda markay yar yihiin mar loo bandhigi karaa jira cunuga markoo taaq iyo hadaaq bilaa balaanku ku fiican yahay laakiin inta umusha qolow isaga jira cunug yariiska marka bini aadanka iyo geedka way iska dhawin dhowr jeer aan idin sheegay mana ka daala waa ku soo celinaa geedkan geed hooseed way qurux waa ziina ee dhada carabta waa shay la cunayo ma ahan laakiin il doogsi iyo caafimaad oo leeyahay oksijiinka xun marka bixiso inuu ku soo filtreeyo oo oksijiin fiican ku soo siinaa qofka artid weedi meesha artid weedi khafiif oo ujeeda carama intaanu careeh ma la qaadi lahay kanu cardhoobe saan farta ma loogu qaadi karo ma fahanti laakiin badmos waay badmos hoos u yaalo macaamiisha la socod badmoskaas ku dadaala adduunka marka tagto maxaa arkay dukaamo waaweyn baqaar waaweyn badmos laga soo gataa iyo qumbaha la shiiday cara dhan waa 130 la isticmaala caro inta kale komboskaas iyo badmoskaas dhalinyarada Soomaalida baagamuudana waxaan ugu baaqaa inay sameeyaan badmos kombos nin walba beejo leeyahay beejkaada soo dhig waa kana macallin bucul intaas haya macaamiisha iyo gudbi ilaan macaamilaha maalba soo weydiiso ko badmos aan u baahanahay kombos aan u baahanahay 4 milyan oo gobolka Banaadir ku nool maan la gaar aniga kombos iyo badmos ma la gaaro aniga teedii haystaa wixii geedayaan ku sameystaa marka casharku waa idin sii waxa idin ka qariyo male sameeysta assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh xuseena wad 15 way amba 20 hanooga soo dhigano ganacsatada amba 20 konton 20 assalamu alaykum MBK Allah baashan MBK 15 way ninkii baalkan keenay ganacsiga uu keenay ayadoo maxaanoo keenay فوسفور عالي أيضا فوسفور كوكو بدين هي لباتن أمبا لباتن كنتن لباتن MBK معناه سدح مادة وجيدها مهم وهم سو مالده إن بالك عندك سدان بالك نقولي ملوجد الدكان أنا له ملوجد أنا جناح سمو كان سنين لكن فائدة إنكو وجرت MBK لا نيتروجين نيتروجين كسعتا فوسفور بوتاسيوم وسدح مادة ولا سو جابي aad iyo aad u dhirtu ugu fiican yahay ina hadda adig ogaato guriga ku ogaato wax lacag ma kaaga bixin khasab waxaan ku sheegay lacag kama wadaay freemano geedaha u adeegso qof kale walaalkana gaarsiiso ugu faa'iido MBK Allah marka maxaan ka وكما سنتين دابشيدين قروحدا بدن معلم بعري ومعلم كميد معلمينta Soomaaliyeed ومعلم ku soo korinay dalkeena wax qabad fiican isbedel fiican ومعلم aad u fiican waxaan idin leeyahay idinku bogaadinaya inaad ka faa'iideysan doontaan insha Allah waan ku maasantiin daabashadiina qurux badan markii mar labaad iyo mar saddexaad waxaad ka codsanayaa inaad soo follow gareysaan share dhahdaan fiidiyogan thanks